maanta waxaan idin barayaa asxaabteeda qaaliga ah sida loo bedelo wifi passwordka ama magaca. Marka Chrome ama Google baad ku dhufanaysaa, kadib wuxuu ku soo saarayaa marka ugu horeyso taleefanka iPhone-ka ku bedeli rabto waxaad taabanaysaa Safari tana taabanaysaa, kadib waxaad ku qoraysaa 192.168 marka intaas ku qoraysaa dhibcaha meeshan ku soo baxaysaa, kadib waxaad ku qoraysaa admin passwordkana, kadib login baad dhahaysaa, kadib meeshan ku soo baxaysaa waxaad ku dhufanaysaa meeshan intana ku soo baxaysaa qoraaladan, kadib walantana taabanaysaa, kadib waxaa ku soo bixiyaa passwordkina bedeshay darabto ka xagaas lagu qoraa passwordka saas bedelaysaa. Haddii magaca rabtid inaad bedeshid SSID-ga taabanaysaa, SSID-ga waa ka xagga magaca ku qoranaysaa 1 ilaa 32 character baa ku bannaan aad ku qori kartaa, aan magacayga ka away baa ku qoran. Haya asxaabta qaaliga ee sharafta badan waxaan idinka rabaa inaad subscribe saartiin, like, comment wax kale rabtiin oo ana idin soo dhigay hadda rabtiin sida iPhone-ka loo update garayo, sida iCloud-ka loo jabiyo wax walba ana meesha idin soo dhigaya isoo weydiista asxaabteeda qaaliga ah.